xabad baa iyo marwada ay ku soo beertay iyo dhammaantiin bahda saxaafadda waxaan idinku soo dhaweynayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan anigu maanta aan u arkaa maalin weyn oo Somaliland u bilatay haddii aanu ahayn guddigii madaxweynaha la doortay uu igmaday inaanu talo ka bixinno qaab dhismeedka dowladdu yeelan doonto. waxaanu isku daynay inaanu si lilaahi sida aan u aragno inay nasteexo tahay dalkeenna, sida ay ugu habboon tahay in inagoo tixgelinayna awooddeena dhaqaale iyo duruufaha taagan ee dalkeenna inay lagama maarmaan tahay in tiradii faraha badnay ee wasiirada ee wasiir ku-xigeenada lahayd ee wasiira dowlo lahayd ee mid walba mushahar u baahnaa, xafiis u baahnaa, gaadiid u baahnaa, kharash u baahnaa, in aanay duruufaha dalkeena haystaa aanay saabacayn, waddankeenu qaadi karaynin tiro wasiir oo la xadkaado. haddii aynu eegno waddankeennan waa waddan soo koraya, waa waddan faqiira, waa waddan dakhligiisu kooban yahay, waa waddan ilihii dhaqaale aanay u wada furmin. haddii ay jiraanba waa dal u baahan in waxaa awoodeennu ay tahay inaynu ku tashanno oo intaa wax ku qabsano. wixii ilaahay inoogu daro ee gadaal ka yimaada ee inoo furman waa halkeeda, laakiinse waxa maanta aynu haysanaa aad bay u kooban yahay. waxaanu isku daynay inaanu talo ka bixinno go-aanka madaxweynaha leh, annagu talown baanu ka dhiibanay, waanu ka doortay, dhan walba waanu ka eegnay, idinkaanu idinka mid nahay. waxyaabaha dhibaatooyinka sidaanu u aragna idinkubood u aragtaa waanu ka fursan wey. inaanu 15 wasaaradood ayaa dalkan u shaqayn karta. 15 wasaaradood haddii ay noqdaan